بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولا ليال ميل كستا والدنيا يدافع عالم كأدك جوتان. إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو، إلهينا هيدن حفديو أينما كنتم. وولالكين عتيبة شيخ أحمد إن شاء الله تعالى هدو الله رحمن كقدر موقالك ما أنتو حنكا قاعد دونا لبا حنون oo kamid ah xanuunada ugu saameynta badan leh bulshada waqti xaadirkan aynu noolnahay. waa laba xanuun ama laba cudur oo khatar ku haya bulshadeena maanta intooda ugu badan. xanuun waxa weeye waa xanuunka loo yaqaan macaanka ama dadka qaarkood soo yaqaaniin sokorta. xanuun waxa weeye waa xanuunka loo yaqaano dhiigkarka ama barasharka dadka qaarkood soo yaqaaniin. labadaas xanuun oo maanta dad fara badan oo annaga inaga mid ah dhibaato badan ku haya, ragaadiyey, culaysyo badan ay dadku ka dareemayaan ayaan insha allahu tacaala aan doonayaa maanta inaan dul istaago. walaalayaal, anigoo ka eegaya yacni dhanka cilaajka ah, maadaama shaqadeedu ay tahay shaqo cilaaja, anigoo ka eegaya dhanka iyada ah xanuunadan macaanka iyo dhiigkarka intaba mararka qaarkood waxaa dhacda dad fara badan oo la dhibaataysan oo aan arkay u yimid oo waxaan arkay yacni markii aan quraan saaray ay ka dul hadlayaan shayaadiin ay leeyihiin macaanka annaga ayaan iska dhignay ee gabadhaani ama wiilkan macaan ma qabo, annagaa sokorta iska dhigayna, annagaa dhiigkarka iska dhigayna, annagaa ku mashquulinayna sifo dhakhaatiirta ugu dawareego waqtigana kaga dhumiyo oo kaga dhumo. laakiin xaqiiqadu waxa weeye macaanna ma hayo, dhiigkarna ma hayo, annagii ayaan ruuxaani dhibaataynayna. marar fara badan ayaan arkay. waan isweydiiyey marka, ma sababi karaan xanuunadan isha iyo xasadka iyo waxyaabaha lamidka ah isha ma sababi karaan yacni xanuunadan sokorta iyo macaanka? baaritaan dheer kadib waxaa ii caddaatay inay suurtagal yihiin. weliba waxaan arkay dad fara badan oo xataa loo soo qoray cirbado la yidhi qaarkood waad la noolaanaysaan xanuunka sokorta, qaarkoodna kaniiniye loo soo qoray, bac kaniine ah la leeyahay cuna intii noloshiina ka dhiman, haddii kaleeto khatar baad galaysaa, waad dhimanaysaan. arrintaas ayaa rabaa marka insha allahu tacaala wax yar inaan idinka fahansiiyo, maadaama aynu nahay ummad muslima oo ilaahay subxaana wa tacaala muslim ka dhigay, iimaan leh. ilaahay subxaana wa tacaala ayna siiyey daawo aan la siin xataa gaalada, ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey. maxaa yeelay walaalkayga muslimka ow iyo walaasheeda muslimadda ahy midna ogow, ilaahay cudur ma soo dejiyo ilaa wuxuu soo dejiyaa daawadiisa. maa nazala allahu daa'an ilaa nazalahu shifa. ilaahay cudur ma soo dejiyo ilaa haddii uu soo dejiyo wuxuu soo dejiyaa daawadiisa. cudur bilaa daawa ma jiro, ogsoonaada. cudur kasta daawo wuu leeyahay. waxaa daawo ah qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala. qofku markuu xanuunsado qur-aanka ilahay baa saarayna, maxaa yeelay ilahay baa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaءun waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara. waa shifo, waa daawo, waa caafimaad, waa raxmad, qur-aanka ilahay subxaana wa tacaala. haddaba marka sidee marka macaanka iyo dhiigkarka dadka haya loogu cilaajiyaa fi lqur'aan? tajribo badan oo aan sameeyey, dad badan oo aan talooyin siiyey, ilaahay subxaana wa tacaala ku caafiyey, aan arkay, ayaan jeclahay maanta inaan idinkula wadaago muuqaalka, adinkuna inaan idinkaga faa'iideeyo. haddii uu jiro qof ehelkaada oo macaan qabo, haddii uu jiro qof ehelkaada oo dhiigkar qabo, haddii uu jiro qof yacni qoyskaada ka mid oo xanuunsan lana xanuunsanayo labadan xanuun aan soo tilmaamay, macaanka iyo dhiigkarka,
muuqaalkan la wadaag si ugu faa'iidaysto uguna tinfaaco. kow waxaad soo qaadanaysaa koobkan biyaha ah ayaad soo qaadanaysaa. waxa aan ka hadlay waxa weye waa tajriibo, waa waxaan tajribeeye weye. qur-aanka ilaahi waa daawo, wax kastoona daawo yahay oo xanuuna. anigu aqoonteyda gaaban iyo cilmigeyga yar waxaan tajribo ku ogaaday aayadahan aan kuu tilmaami doono. haddii aad biyo ku akhrisato, haddii aad la dhiban tahay xanuunka macaanka iyo xanuunka dhiigkarka iyo waxyaabaha lamidka xanuunadan, haddii aad aayadahan qur-aanka aad ku akhriso biyahan, walaalkayga muslimka aho iyo walaashayda muslimadda ahay, aroortiina aad cabto adigoo afkaada qaba, habeenkii markaad seexanaysa agteeduna aad cabto biyahan inta qur-aankaa ku tufato, waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajeynayaa inaad ku caafimaadi doonto ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. waa haddii aad si niyada oo yaqiin ah adigu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa weyneynaya, aaminsan inuu daawo yahay, haddii aad cilaajkan samaysid. intaas weeye waxa aan ka leeyahay muuqaalkan. dan kale aa ka leeyahay haba yaraatee ma jirto. waxaan jeclahay inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu dhowaado, ummaddan aan ku anfaco wixii aniga aqoonteyda gaabana sifay ugu faa'iidaystaan uguna intifaacaan. walaalkayga muslimka waxaad soo qaadanaysaa koobkan biyaha ah ee la dhiban xanuunka macaanka. koobkan biyaha soo qaadanaysaa. haddii aad heli karto biyo zamzam ayaga ugu wanaagsan, soo qaado biyaha zamzamka ah. aroortii markuu waaga baryo adigoo afkaada qaba, waxnana aadan cunin, walaa kaniini walaa quraac, adigoon waxba aana afka saarin, markii aad soo kacdo salaada ilaahay dukato aad cadaysato, bakeeri biyo ka soo buuxso. haddaad zamzam heli karto waa sida ugu wanaagsan ugu khayrka badan. soo qaado, afka u dhoweeyo. afka markaad u dhoweyso waxaad ku akhrisaa 7 faatixa, suuratulfaatixa ayaad ku akhrinaysaa. ummul qur'aan weeye, waa daawo, waa caafimaad. soo nabi maxamed calayhi salatu wasalaam inoo tilmaamay. suuraddaas ku akhri 7 mar adoo afka u dhoweynaya oo ku tufaya tufta saas ugu tufaya 7 mar baa ku akhrinaysa. waxaad kaloo akhrinaysaa 4 qul. waa qul yaa ayuha alkaafiruun, waa qul huwa allaahu axad, waa qul acuudu birabbi alfalaq, waa qul acuudu birabbi annaas. waxaa 5 kaga dhigaysaa qul allaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa'u wa tanzicu almulka miman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudillu man tashaa'u biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir. ayadaas baad 5 kaga dhigaysaa. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. كو قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. شنتاس خلائق يدكو أخرين إيسا كتو فيسا هذو أفكو دويني وليبا آيات كستوحد كتو فيسا تضبجر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تضبجر بعد أخرين إيسا تضبجر آيات كتو فيسا. قل يا أيها الكافرون تضبجر. قل هو الله أحد تضبجر. قل أعوذ برب الفلق تضبجر. قل أعوذ برب الناس تضبجر بعد كتو فيسا. قد كتو فتو كسو قتميسا السن لغا النبي عليه الصلاة والسلام. هي آية الكرسي. آية الكرسي أيضا waxaad ku tufaysaa 7 jeer. saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tufaysaa 7 jeer. biyahaasi markaad intaas quraan aad ku tufto waad cabaysaa si niyo ah oo yaqiin ah ayaad ugu tufanaysaa waad cabaysaa adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga rajeynayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka keena kaana qaadi karo. niyad adoo qalbiga ku haya, maxaa yeelay cudur ilaahay ma soo dejiyo ilaa daawadiisa soo dejiya. daawada ilaahay subxaanahu wa tacaala sigaa kaa yaqaana. meeshaad ku caafimaadaysid iyo goobtaad ku caafimaadaysid iyo xilligaad ku caafimaadaysid iyo intuu xanuunka ku haynayo inaad la dhimanayso inaad la noolaanayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku cilmi leh. si fiican u faham walaalkayga muslimka oo waxba yaa lagu wareerinin, waxba yaysan gaalo waswaas kugu abuurin. qof muslim baa ilaahay kaa dhigay, wax kasta waa laga caafimaadaa. nabiyullaahi ayuub calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam 18 sano xanuunsan, marad baa ku dhacay, xanuun jirkiisa gogo'ay 18 sano. إلهي سبحانه وتعالى بوبري ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي مركي وكأجي سيديد يتمسروا دباتي صنع ودولك قال وجيركي سوء دلدلاعي ومقاربه قدعي. إلهي سبحانه وتعالى بو إلهي وكأجي إلهي من داو كواي وهمية
يا حنونك كوكان إلهي يا كان قادر كان إلهي يا كو أبور إلهي يا حنونك كان إلهي يا أبور حنونك إلهي سبحانه وتعالى إلهي بري قرآن كان أخرسه إلهي وحن كذا جينيا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى إنه إلهي كو عافي كاغان عافيو حنون كاني dhibaatada badan dadka ku haya waliba khaasatan jirka yani dadka bini'aadanka dhibaato badan ku haya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa dulqaado cirba dambo jirkaada kuma duraysid adigoo macaan yani ka taxadaraya kaniini dambe cuni maysid oo bareshar iyo dhiikar lagu talagalay intaba adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xay uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yamuut uu yahay ilaahay bari kaniiniga insha allahu tacaala wad cilaajkaana wad kadib barooway xaaladaadu say noqoto adoo kaniinigii wada cilaajkaana wad kadibna waxaad isku daydaa xilliga kaniiniga aad cunaysa waktigii inaad xoogaa aad dib dhigtid aad fiirisid xaaladaada la socotid si aad u ogaatid in yacni isbedel uu jiro in kaleeto laakiin haddaad kaniiniga isku cunto taaliisha aad cunto iyaduna waa wanaagsan tahay muhiimadda waxa la raadinaya waa caafimaad labadu way wanaagsan yihiin kaniiniga wad oo yacni marmarka qaarkood tijaabi oo ka bood oo yacni isbar biyaha taaliisha ah maxaa yeele qur-aanku waa xoogan yahay aad buu u culisaya qur-aanka ilaahay subxana wa tacala ma sahlana yani waa caafimaad waa daawo sir baa ku jirta qur-aanka ilahi subxana wa tacala sababtu ilahi u leeyahay waxaan usoo dejinay daawo iyo raxmad wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaun waraxma sir baa ku duwan halka iyada ilahi subxana wa tacala baa og niyad iyo yaqiin baa lagaa doonaya marka ilaahay bari ilaahay weydiiso biyahana ku tufo kaniinigana wad ilaahay idinkii wax ka rajaynaya subxaana wa tacala inaad ka caafimaadi doonto oo la dhihi doono yacni maanta ugu dambaysay cilaajkan baa wadaysaan muddo 14 cisho ah waa 2 isbuuc subax iyo galab subaxdiina biyaha waa tufanaysaa qur-aanka kuu sheega waad ku tufanaysaa adoo afkaada qabo kadibna biyaha waa cabaysaa habeenkii inta aadan seexanina qur-aankan kuu sheega baad ku tufanaysaa kadibna waad cabaysaa muddo 14 cisho ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ilaahayna ha kugu caafiyo caafimaad taaman allah ku siiyo sokorta iyo dhiikarka intaba ilaahay subxaana wa tacaala sigaa kale ilaahay kaa dulqaado ilaahay baan kuu baryaynaa ilaahay baan kuu weydiinaynaa inuu ilaahay kaa dulqaado ilaahay ha kaa dulqaado ilaahay caafimaad taama ha kugu siiyo culeyskana allah kaa dulqaado waa walaalkaa cuteybe sheekh axmed oo muuqaalkan yacni idinkugu talagalay inuu idinkugu faa'iideeyo niyaddana idinkugu dhiso runtana yacni idin bidhaamiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay xanuunkana keeno xanuunkana isaga qaado ilaahayna aan ku kalsoonaano ilaahayna aan barino ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen hayna wada caafiyo dhammaanteen waynu xanuunsannahay qof walba xanuun baa haya kubaa gaaf la dhiban kubaa kiliyaha laga dhaqaa kubaa bare dhiikar haya kuwabaa sokor qaba kubaa suuxtiin qaba kubaa yacni qalbigiisa aan degnayn dhammaanteen waan wada xanuunsannahay dhammaanteen waynu xanuunsannahay mid baa caloosha ka jiran mid baa wadnaha ka jiran mid baa saxarada ka jiran mid baa kaadihaysta ka jiran mid baa lugaha ka jiran mid baa dhabarka ka jiran mid baa dhuunta ka jiran ninba meel buu ka jiran yahay ilaahay aan isku xirno ilaahay aan barino cilaajkan insha allahu tacaala si gooni ah aan ugu dadaal insha allahu tacaala weliba dadka qaba xanuunada sokorta iyo macaanka intaas weeye muhiimadeyda iyo gabagabadeyda muuqaalkan la wadaag walaalaha kaleeto sifay ugu faa'iidaystaan uguna intifaacaan ilaahayna subxaana wa tacala idinku caafiyo oo walaalka cuteybe sheekh axmed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu